بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ومالنتي شناد يا برامجكي أينو كغا ورمينay bisha barakaysan axkaamteeda aadaabteeda iyo siyaalaha qofka muslimka uga faa'iideysanayo fursadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ina siiyay waxaynu kaga soo waranay saddexdii fadhiyo hore afartii fadhiyo hore fadaaisha bisha Ramadaan soonka la soomo iyo fadligiisa waxa la yiraahdo salaatul leylka iyo fadligiisa sidoo kale bisha Ramadaan maxay ku sugnaataa waxaynu insha Allah ta'ala xalaqadan ku soo qaadanaynaa shuruuda uu leeyahay soomku shuruudaas labaynu u qaybinaynaa shuruuda soonka qayb waxa la shuruudul wujuub oo macnaheedu yahay waa shuruuda marka la helo qofka uu soomku ku waajibayo qaybna waxa la shuruudul sihha oo macnaheedu yahay si uu soonku kaaga asaxo shuruuda loo baahan yahay hadaynu ku horeyno shuruuda wujuubka waxa shardiga koobaad al-islaam qofku haduusan islaam ahayn loo diri maayo inuu soomo hadhowta qiyaamo ka tagitaanku ka tagay soonka uu ka tagay waa lagu ciqaabi laakiin adduunka intuu joogo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashi saalixaadka hay la fari maayo ilaa uu la yimaado shahaadateynki oo islaamkii soo gala diinta waayo lagama aqbalayo intuu gaalka yahay qodobka labaad oo shuruuda wujuubka kamida waa al-buluq waa inuu qofku qaan gaaro duusan qofku qaan gaarahayn soonki waajib kuma aha markuu qofku qaan gaaro rag iyo dumarba markaasuu baa soonki waajib ku noqonaya caruurta yar yar ee tamiiska gaadhay laakiin wali aan qaan gaarin 7 sano jir haday gaaraan waxa fiican lagu sii tarbiyeeyo sida salaada oo kale 10 jir haday gaaraan oo diidaanna in waxoogaa lagu edbiyo ayaa fiican sababtoo ah uu ku tababaranayaa soomkii ayuu sii baranayaa marka waxaad sameynaysaa waad soominaysaa 7 jir iyo wixii ka weyn maalinkii markuu gaajoodana cuntaad siinaysaa mararka qaarkood waxa laga inuu barqadii afuro mararka qaarkood waxa laga inuu duhurkii afuro mararka qaarkood waxa laga inuu casarkii afuro aakhirkana uu dhamaysan doonaa marka in sidaa loogu tarbiyeeyo loogu tababaro ayaa fiican laakiin waxay ku waajibaysaa markuu qaan gaaro shardiga saddexaad si qofka soonku ugu waajibo waa inuu aqli leeyahay qofkii waalna ee ilaahay xiska iyo miyirkii ka qaaday waxba soon laguma laha waajib kuma aha duu la yimaadana ka asixi maayo cibaadooyinkii oo dhanna waa saas waxaa ka mid ah oo shardiga afraad noqonaya haddii ay gabar tahay qofka soomayahay waa inay daahir ka tahay dhiiggii caadada iyo dhiiggii dhalmada haddii labadaasi jiraan inay markaa soonto waajib kuma aha markase ay ka baxdo oo ay daahir noqoto unbu waajib ku noqonaya ayaamahana way soo qadayn doontaa shardiga shanaad oo shuruuda waajibnimada ka mid ah waa al-qudratu ala as-sawm qofku waa inuu soonka awoodi karo duusan soonkii awoodi karahayn oo mesela waa qof da'ah oo waayeel ah rag iyo dumar ku doona ha ahaado ama waa qof xanuunsan oo dhulyaal ah oo soonkii awoodi karahayn asagana soon waajib kuma aha maxay sameyn doonaan dib bay inooga imaan doontaa insha Allah ta'ala markaynu ka warrami doono dadka cudurdaarka leh iyo sida ay soomka ka yeelayaan shuruuda soomka qaybta labaad waa shuruudu sihha qaybtii hore wadaagaano islaamnimadu waa kamid qofku si soonkiisu u asaxo waa inuu muslim yahay gaal soonka asixi maayo xataa hadduu soomo tamiiz waa inuu gaaro 7 jir iyo wixii ka weyn waa inuu gaaro duu ilmo caruur yahay oo nuuna ah dee soon markaa ka asaxaya ma jiro acdaartii iyo cudurdaaradii sida dhiiggii dhalmada iyo kii caadada waa inay qabadii daahir ka tahay waa inuu waqtigu yahay waqti soon aqbali kara waxaa jira waqtiyo sharcan aan la ogolayn in la soomo sida 2 maalmood ee ciida iyo 3 maalmood ee ayaamu tashriiqa oo kale maalmaha noocaasna waa inuusan ahayn si qofku markaa soonkii uu soomi karayo intaa waxaynu ku daynaa insha Allah ta'ala shuruudii soomka iyo fadhigan maanta sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad